Salaamullahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Soo dhawaada daawadayaal, halkani waa dabagalka wararka Kids Media. Sirdoonka Soomaaliya ayaa shaaciyay iyo dowladda federaalka Soomaaliya in howlgal degdeg ah ay fuliyeen hay'adaha sirdoonka qaranka Soomaaliya iyo Turkishka oo iskaashanaya qaasatan hay'adda Turkishka ee MIT loo yaqaano iyo xubno kale oo ka tirsan Talyaaniga inay soo furteen gabartii 25 jirka ahayd ee kooxaha hubaysan ay si afduub ugu haysteen deegaano ka tirsan dhulka Soomaaliya, halkaasi oo ay muddooyinkii ugu dambeeyay muddo 2 sano ku dhawaad ay halkaasi ku haysteen. Gabadhan ayaa magaceeda lagu sheegay Silvia, hase haatee gabadhan ayaan la garanayn sababta ay u soo afduubteen iyo kooxda soo afduubatay toona. hase haatee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa guud ahaanba shaacisay in lagu guuleystay howlgalkii degdega ahayd una mahad celisay ciidamada sirdoonka qaranka Soomaaliya sida lixaad leh ay warbixintan u soo gudbiyeen ulana wadaageen hay'adaha sirdoonka ee caalamka si looga caawiyo. hase haatee ugu dambeyn gabartan ayaa maalnimadii Sabtida la soo dhaafay waxaa ciidamada federaalka Soomaaliya iyo kuwa Turkish ka tirsan oo galbinayo ay soo gaarsiiyeen magaalada Muqdisho kadib markii ay ka soo furteen halkii lagu haystay. Gabadhan oo 25 jir ah ayaa waxay ka shaqeynaysay dhanka samafalka, hase haatee dowladda Kenya wax macluumaad ma aysan ka helin ilaa iyo 2018 oo laga soo afduubtay deegaanada kamid ah Nairobi xaafada ka tirsan. Gabadhan 25 jirka ayaa la arkayay kadib markii ay soo booqdeen saraakiil iyo sirdoonno kala duwan markii la soo badbaadiyay kabacdi ayadoo dadka ku salaamayso shafkana gacanta saaranayso ama xagga lega hore oo ku salaamayso, taasi oo diiday inay gacanta geliso ragga. Arrintan ayaa fajac iyo la yaab ku noqotay dadyowgii iyo dadkii ehelada qaar ka mid ahay oo la hadlayay warbaahinta. hase haatee gabadhan ayaa caddaysay in gabadhani ay qaadatay diinta Islaamka nasiib wanaag. hase haatee arrinkan ayaa asigana wuxuu noqday arrin lagu farxo. Dowladda Turkishka ayaa ka hadashay qaabka ay u soo furteen, hase haatee waxay uga mahad celisay ciidamada federaalka Soomaaliya qaasatan ciidamada sirdoonka qaabka nabadgelyada leh oo quruxda badan ay u soo gudbiyeen xogtan iyo waliba kaalinta ay ka qaateen. hase haatee dhanka dowladda Talyaaniga ayaa iyaduna sidoo dhigada ka hadashay gabadhani. haweeney ay isku family yihiin oo la hadashay dhanka Twitterka ku soo qortay ayaa tiri aad baan ugu faraxsanahay in la soo deeyo walaasheen, waana ku faraxsanahay iyadoo uga mahad celisay xubnihii ka qayb qaato dhan qaasatan ciidamada Talyaaniga qaar ka mid ah iyo ciidamada Turkishka iyo qaranka Soomaaliya. hase haatee qodheeda Silvia ayaa qodheeda barteeda Twitterka qoraal ay soo dhigtay ayaa waxay ku sheegtay oo gablay inay aad ugu faraxsan tahay inay soo badbaado alla mahadiisna ay tahay. waxaan isku dayay inaan iska caabiyo laakiin way ii suurageli weysa bay tiri. hase haatee ma sugi karayo intii laga geeyo dalkayga ayay ku tiri warbixinta. dowladda waddanka Ruushka ayaa dhankeeda waxay shaaca ka qaaday inay guud ahaanba 5 sano ka bacdi fashil dheer ka bacdi ay soo gabagabaysay howlgalladii ay ku haysay xogo la helayo howlgalladii ay ka haysay dalka Syria iyadoo aad u danaynaysa in maamulka Bashar al-Assad halkaasi uu sii haysto. sidoo kale waxay aragtay kadib markii dowladda Carbeed iyo Bashar al-Assad oo aad ugu janjeeray dowladda Carbeed kuwaasi oo kale dano qaasa kuwaas oo ah dana siyaasadeed. hase haatee arrintaas aysan ula muuqan dhankiisa Ruushka inay tahay arrin wax u gasho ayaga iyo dhammaanba dalka Ruushka. dhanka kale dowladda Iran ayaa dhankeeda waxay falal arbushaada ka waday baa la yiri dhanka dowladda Syria kaasi ay ku bartilmaameysay baa la yiri in nabad ay ka dhacdo gobolkaasi xasilooni oo gaaro. lama oga sababaha ay uga dan leedahay laakiin ugu dambeyn arrinta ayaa cirka isku sharartay markii ay dhawaan muddooyinka ugu dambeysay ay ku daabulaysa baa la yiri dhaqaale iyo hub aan kala joogsi lahayn dowladda Syria si qarsoodiya. hase haatee dowladaha Ruushka iyo waddanka Mareykanka oo qudhiisa aad ugu dagaalamayay dhanka gobolka in dhankaasi wax un isbedel laga sameeyo ayaan dhankooda ku guuleysan. hase haatee Mareykanka qudhiisa ka muusan farlaaban arrinta walow uusan mowqifkiisa uusan ka cadayn halkaasi.
wasiirka arrimaha dibadda oo turkishka oo ka hadlay arrimihii ugu dambeeyay ee dalka Sacuudi Carabiya iyo hagardaamadii ay ku haysay ayaa wuxuu ka hadlay muddooyinka ugu dambeeyay in dowladda Sacuudi Carabiya ay aad ugu dadaaleysay inay dalalka Carbeed iyo dalalka Islaamkaba ay si hagardaamaha ula shaqeeyaan, taasina ay ayaga qudhooda caqabad ku noqon doonto. asigoo la hadlayay warbaahinta ayuu sheegay in ay arrinka ay dowladaha qaar iyo xubno ka mid ah xubno ka mid ah wadamada carabta oo isqarinayo ay qaab munaafaqnimo oo labawajila ula dhaqmayaan dowladaha Islaamka, khaasatan bowri howlgallada ka socda bowri Liibiya, Yemen iyo Syria, taasina ay ayaga qudhooda ay noqdeen kuwo curyaamiyeen.